وحام هذا إسكال الله سبحانه وتعالى كسكو وحام هذا إسكال دمان لامها أمنية جمهورية الفيدرالية الصومالية حري لالينتا محكمة عدالة قلب كسيدا iyo saraakiisha qaybahooda kala duwan ee ka shaqeeyay dhiraandhirinta arintan Yusuf Muuse Ibrahim iyo Ibrahim Muuse Ibrahim waa laba dhalinyaro oo wada dhashay mataana ah oo aabahoodan uu garabkayga taagan yahay wax laga xumaado tii ugu xumeed ah in dad mas'uuliyiin oo ummadda Soomaaliyeed inay u adeegaan loo igmaday inay haddana ka shaqeynayaan inay ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyaan mar haddaan shabaabkii qoriga qaatay ka yeeli weyn inay ummadda dhibaateeyaan ninka mas'uulka ah ee dulmiga inta la eg sameynaya cambuul carab saaran waxba nooma dhaamo waajibka sharcigan la horgeyn doona 22 bishii 12 2025 waxa la sheegay Ibrahim iyo Yusuf inay afduuban yihiin media la sheegay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxay mucjiso ku noqotay qof afduuban oo haddana live soo galay waxa kale oo dhibaato lahayd Ibrahim inuu aabihiisa isbitaalka ugu tagay isbitaal ayagoo jooga xogta la helay laama amniga ay la socday markii ay damceen labadooda majaamiradii iyo dhibaatadii la waday ay dareemeen wiilashu ay yiraahdeen laama amnigan wargelinaynaa inay dad mas'uuliin ay yiraahdeen joojiya ma wargelinaysaan ee guryahooda ku hayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay hayaan xog dhameystiran oo ku aadan baawurkii lagu qaaday goobtii la geeyay dhammaan kaamirasiisiida waa la hayaa xirlaalintan lagu wareejiyay kiiskan eedeysanayaasha loo soo qabto hadda xiran waa hal eedeysane kuwa kalena waa ku raad joognaa sida ugu dhawaana loo soo qaban doona oo mas'uuliyiin waxaan u digaynaa dadka Soomaaliyeed in amnigan iyo nabadan iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed ay haysato lagu keenay dhiig wiil Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed oo maracad madax loo saaray markii ammaanka la helay in haddana lagu dhibaateeyo mujaamirad iyo xadgudub loo geysanayo waxaan kaloo sidoo kale cadeynaya in xildhibaanka la ijaa'ifeeyay laguna jaa'ifeeyay wuxuusan asaga u qalmin wiilashiisana lagu dhibaateeyay dadka ka shaqeynayeen dad dana gaar ah xirlaalintan ku wareejinay kiiskooda xirlaalintii booliiska gacanta ku wada hayaan waa la baara meeshuu galana waa looga daba tagaa mas'uul ahaw xilka doontahay nooca doonto garo nooca doonto u hadal maantay ninka dhuumanaya dhabarkiisa muuqda